iyadoo weli ay ku guda jirto samafalka iyo taburucaadka hay'adda samafalka ee Amuud Foundation ayaa waxay deeq raashin ay gaarsiisay xarunta agoomaha ee magaalada Gabiley raashinkaas oo isugu jiray bariis, daqiiq, sonkor, caano, liin iyo timir waxaana goobjoog ka ah wareejinta raashinkaasi maamulka gobolka Gabiley iyo sidoo kale hooyada xaruntaasi Professor Ahmed Abdi Ismail oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adda samafalka ee Amuud Foundation oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixinaya deeqda raashinka ay ku wareejiyeen xarunta agoomaha ee Gabiley maanta kulli waxaan u kulansanahay waxa weeye inaan wareejino haddana Amuud Foundation gargaar raashin oo loogu talagalay xarunta agoonta Gabiley gargaarkaas maanta wuxuu ka kooban yahay 6 item weeye waxa weeyaan daqiiq iyo sonkor iyo bariis iyo waxa weeyaan iyo liin iyo caano iyo timir loogu talagalay agoonto in muddo ay isticmaalaan kolba intii magaalada ay waqti Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu simo samarka ka soo warantay Safiya gargaarkan ma kii goor marka Amuud Foundation ay samayso wuxuu ka kooban yahay 3 nooc gargaarka marka halkan uu fiirsaa wuxuu ka kooban yahay dhismayaal kulba wixii loo baado ay sheegaysay waxa weeyaan qaybaha la seexanayo jiifka ay marka ku beerisay bakhaarada ay u dhistay iyo wixii kale kolka looga baado xagga dhismaha waxa kale ay ku dari jireen xaqul ciidkii iyo ciid inta badan soo ciidin jiray wixii kale loo helo iyo raashinka runtii oo waxa weeyaan Amuud Foundation ku talagashay sanad walba wixii marka waliba baahidooda soo sheegtaan maaha wax joogtaan maaha oo u qorama laakiin baahida soo sheegtaan hadana waxba laga ma reebo marka maama Safiya runtii khayr laha siiyo waa qofka u dadaalaya iyadoo inta la joogta xasanaya ay kamid yihiin marka waxay u soo gudbiyeen baahidooda gaarka ah alxamdulillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ku asturay Amuud Foundation marka inay kolba ay ka jawaabto hooyada xarunta agoomaha ee Gabiley Safiya oo aadan micaad oo iyadna halkaasi ka hadashay ayaa waxay ka mahad celisay deeqda raashinka ay soo gaarsiisay hay'adda Amuud Foundation Amuud Foundation ilaa 7 sano iyay nala shaqeynayaan iyo said markii horeysay halka gidaarka hooseyna soo eegaya dayrka ku joogay xerada markaas aan dabeetana xagga dambe dhismihii dib baan ka bilaabay anoo seeskoodii wada ii yimaadeen madaxdii Amuud Foundation marka waxaan doonayaa in inta ay la dhistaan marxabiyo gudoona soo qiimeeyay bay yiraahdeen waanu qiimeynay marka $15,000 bay noqdeen labada hoolay seexdaan aad iyo aad baanu Amuud Foundation shaqaalaheeda kala duwan iyo madaxdeeda uga mahad celinayna waxaan rabaa maanta halkan inaanu kulay sida arkaysaan ay raashin kale soo gaarsiiyeen waan uga mahad celinayna barasabka gobolka Gabiley Maxamed Ismail Xaaji Axmed oo signalkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay walaalaheen Amuud Foundation jazakumullah khayr baan leenahay inta soo bixiseen hawshaana halka ka sii wada dadkeena muxsiniinta wax haysta iyo haddii noqon lahayd xukuumadda in ina dheer iyo indho dhowba loo yeesho dadka ma garanaysaa caruurta ah ee u baahan gacanta badan baahiyaha badan ee ay ku xiran yihiin sidoo kale caruurta agoomaha lagu hayo Gabiley ayaa hay'adda samafalka Amuud Foundation ku amaanay sida ballaadhan ay uga warhayaan xarunta agoomaha ee Gabiley waxaan ku noolaa xarunta agoomaha gobolka Gabiley waxaan mahad celinayaa Amuud Foundation magacaygu Maxamed Miguel Macleesh hay'adda Amuud Foundation u mahad celinayno markasta naga warhayso si kastaba ahaatee hay'adda samafalka ee Amuud Foundation maaha markii ugu horeysay deeq noocan oo kale ay gaarsiiso Gabiley waxaana xusid mudan xarunta Gabiley ay Amuud Foundation ka hirgelisay 2 hool oo wax lagu barto hool lagu kaydiyo raashinka iyo sidoo kale hool ay caruurtu seexdaan Maxamed Xasan Ismaashiil telefishinka Ariel magaalada Boorama.